madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo maanta fadhi labada gole ee baarlamaanku yeesheen ka jeediyay khudbad sanadeedkiisii dastuuriga ahaa ayaa ka hadlay arrimo kala duwan oo la xiriira amniga, siyaasadda, dhaqaalaha iyo weliba xaaladaha guud ee dalka Soomaaliland ku sugan yahay xilligani. madaxweynuhu waxa uu khudbadaasi kaga hadlay qodobo ay ka mid yihiin arrimaha doorashooyinka, dhibaatada cudurka coronavirus uu ku hayo caalamka iyo Soomaaliland, iyo weliba abaaraha ka jira qaybo ka mid ah dalka, isagoo oo dhinaca kalena madaxweynuhu khudbadiisa ku soo qaaday siyaasadda arrimaha dibadda. madaxweyne muuse waxa uu sheegay in ay inta badan madaxda Afrika gaarsiiyeen dambaallo la xidhiidha qadiyadda madax bannaanida Soomaaliland, taasi oo uu sheegay in madaxweynuhu ay uga gol leeyihiin xukuumadahan inay ka biyadhiijiyaan amase ay ka gungaadhaan cudurdaarka ay wadamada caalamku arrinta Soomaaliland ugu riixaan amase ay ugu xidhaan go'aanka qaaradda Afrika. waxaanu sheegay in qaar ka mid ah wadamadaasi ay madaxdoodu ka dalbadeen xukuumaddiisa sharaxaad dheeraada, halka qaar ka midina aanay ilaa iminka ka jawaabin, kuwana ay markaasi cilaaqaadka Soomaaliland aqbaleen. haddaba daawadayaal, waxaanu halkan idinku soo gudbinaynaa qayb ka mid ah khudbadaasi oo madaxweynuhu kaga hadlay siyaasadda arrimaha dibadda iyo weliba dadaalada ay xukuumaddiisu samaysay sannadihii tegey iyo waxyaabaha u qorshaysan ee ay markaasi ku sii dardargelinayaan qadiyadda jamhuuriyadda Soomaaliland, xoojinta xiriirka ay caalamka la leedahay. arrimaha dibadda siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland mabdi'iyan waxay ku dhisan tahay nabadgelyo, iskaashi iyo wada qabsi caalamka oo dhan iyo dariskaba. soddonkii sano u dambeeyey fagaaro kasta oo tagniyo dowlad kasta oo hadala waxay nagu xujeynayeen ama ay nagu gudbayeen xaalkiinu waa xaal Afrika ah. midowga Afrika iyo Afrika ayaa anaga nooga farqudhuban qaaradda tagtaaba ama daacada ka ahaato ama gar ha ahaatee muddo taa lagu warjoogo. darteed waxaanu qaaday jidka ah in Afrika laga hawlgalo. deetana sanadkii u dambeeyey xoog badan baanu saaray Afrika saynu ugu yeeran lahayn saaxiibo cusub. waxaanu ku guursanay inaanu dhammaan dowladaha Afrika horta waraaq qoraal ah oo u sharxaysa Soomaaliland waxay doonayso iyo inay xaq u leedahay ay ku caddahay inaanu u diray dhammaan madaxweynayaasha geeska Afrika meel jooga dhammaantoodna ay heleen. waxaa naga soo noqday in naga aamusi waa jirtaa in badan ayaa naga soo weydiisay macluumaad intaa ka badan oo u baahatay tafsiir badan in loo soo gudbiyo. saaxiibo ku qancay ama hore u ogaa inay Soomaaliland xaq u leedahay aqoonsiga dowladoodana aanay ahayn boos iyo waxay ku fadhidaan in badan oo ogeyna taageerada ka helay. walaalayaal waa ogeydeen marka aynu safar u baxnaba colaadda xamar ka bilaabata taa dib baan kaga hadli doonaa. Afrikada aynu xudxudaynay ama aynu warramaynay waxaynu xoog saaray waxay ku soo dhamaatay oo Afrikada ku riixdaa mar walba idinkii Soomaaliya hadal waxaan ku nahay gar maaha nintiisiba u taag waayo tashan waaye oo isaga toosifoodo tahay dee hanagu xidhida idinba kan caal weeyay waa noqotay qasab in la hadlo wada hadalladii inaga iyo xamar naga dhexeeyay mid taagnaa baan dibroonay wada hadalladaas waxay ku dhamaadeen halka baray waa ka dhigsantii. waxaa warihi noqday oo weliba qolada xamar ay doorteen annagaan ku raacay oo naan diidanay markii hore ah in Jabuuti lagu qabto fagaara lagu hadlayo. shirka waxaa wada Mareykanka oo wada dedejiyay shirka qolada Jabuuti waxay ka ahaayeen gogashay dhigaan jeerkana way hayeen. waxaan uga mahadnaqaynaa madaxweynaha Jabuutiba inay si dhexdhexaadnimo ah oo waayagnimo shirka ku hogaamiyeen oo aanay cidna dhinaca saarin ee nin waliba fagaaraha wixii u leeyahay ay si wacan meel isku cabiri karo dagaladaysa kana u dhigeen. wixii ka dhacay iyo sidoo ahaa idinku cilmaayo oo goobjoog u ahayd. waxa ku xigtay muddo yar kadib in Kenya madaxweynahoodu uu ina marti qaaday iyadana wixiina dhex maray iyo wixii ka soo baxay iyo communique-ga waa haysaano idinku cilmaayo. taa waxaan u sheegayaa waxa ka horeysay Guinea oo sanadkii hore tagnay oo si wacan oo taatu la mid ah
وكذا سنة قلت سومالي لاند وتيجي إلى بدايته هذا ولا ليال وحن وذوقنا وإننا يسوي شيء جريمك لكن أبغى الناس يحسسونه مركز الصومالية مقاش الصومالي الآن تلبع السومي أما ضر إلى هذه المرو شيءته وحليا لا عداوة ينعه يتهلبوا كايقات يسكت الحركة وحارس قبني مركز أي حظ ليا أي دود كينا يا صدق كاسر العالم كله يسرع وحي ومضى وشيء صومالي ما كلام مارته ولا ليالوان ودين باهنا تنسكم ذلك وحنا الودينية نينك بالجكو قراوي حاشا للي بكاحسي هم هو ياب نباك سوريين نباك كلامي دولة باو هذا ولا اللي بدو تشرتو أي حمر رجع كتر يا شيء نينك ولا كلامية أشرف أديك لو كشرف إن الله ما هذا قضاء لكن واحد يقولنا وحيد عين نينك السومال لا كلامية أما وحلا قبطه إنه لو كود يا ونيا وعلى ود بقى حاجة سومالي لو حلاها وركاي عرضاس كما دعاية دولها إن كلامي وحكون عيا هو إنجا تذكر حلوة قورية وسومالي waxay doonayaan in uu sheego Soomaaliland ma tuulida Soomaaliland Muqdisho dadka ka taliya shacbiga Muqdisho iyagaaba aftuuban dadweynaha Muqdisho way ogyihiin waan arkay wax dhacaya dadka talada u haya iska dhaaf Soomaalnimo ay keenaan talaabooyinka ay qaadaan waxa weey to aanay Soomaali warigeed isku imanay iyo cadaawad warigeed ala kala geeyay iyo wax aan la isku quurin hebelow ninka asaad salaantana walaalaanahay milga iyo sharaf iyo bogaad ka budo وأركز كيري وحكي دعي وأركز وحكي دعي قريب شوتي وحكي دبي كنت بيسوي ويدي شركة قبضتين يقول يبتين هذا ودي أي لوج يستوي واحد لوج سيد الدنيا كيري ويدي هذا حابة ضغط شوتي بحوالها شوتي كرسوروها وفتقوا دما أو سلام بنا وده أونا وفتقي سعودي نحن إلى هذه السكايتها ما أعرف ولا أنا عن قارن موسي فقارها نقول واحد جالس شغالي هذا نوع حكت عادة بوذي وحنا تاود إيران ما أنت مقدشو دولة هذا وقت يدور معه دولة عصمنا لما دورا شرعنا ومكرمين هذا نواف هذا هو معمولي سومالا الواحد ديدي ومركي أي تيل ولا هاي دنتي أي كدور بدأ رجال تشتو وتلقى عرض يارك يخلون كما سوى كذا صدق كان سنة وحي عارك وحلا وشقي كربه هذا يصدق كي سنة يدار بحذي ممكن ما أنت متشوه وقت يسوون ما شرعين وكردين وانو حكمه قد بلا يسوى هستو صدق ذا وحياب له وكمله ومرور بإذا عدل لقاها الله وحلا يسوى هستا بارلمان كي قبرده وقوي متلها عدة صوت ولا غير عداودي هوري هي تي هوري عدو waxa ka xunta maanta lagu leeyahay qaranka halka baarlamaankiisa fadhiyo ee dawladdiisa fadhiyo ee ummadiisa wada shaqaynaysa ee meel walba qof wali maanta codkiisa qaatay doorashada diyaarka bal sababta xamar looga oranayo baarlamaankii matal lahaa baa la deedeeyaa bal waxa ay kordhinaysa ee gardarro iyo nac iyo xumaan ahayn hal ay sheego شعب حمر يدد وينه يجا أبا فتور حرور شيء وحلو شيء لنا عالم ولو حبنا حمر لا تشوفه مقدشو وأنا قرنين قضب كاي هلك يكاد شوفه حمر مانتا من الدولة اللي تواعي ما يجا وطريقة ما كده عيبة هايستا ما عيد كلام يقولي وحلو شيء لنا هو حق الضرار إن حتى هو عالم هو ودقيستان كم دقيستان ويكون صحيان بقولوا بارما لك صدرت يجا لفته qaybka ka daran soo waxa kamida odayaasha iyo waxgaradka iyo aqooyahanka Soomaaliya ee Soomaaliya jooga ee u dhiibanaya codkooda noo tari nin dalkiisa ka fakadka ah waradina idin turi maayo wax gelin maayo kana uu ka fakaday
marka iyaga laftooda say u aqbalayaan waxa cod idin sina wax idin dooraya wax idin bedelaya niman cidna ma tagin qolada Soomaaliland u dhalatay ee halka wax ka deeysan waxaan leeyahay idinka ceebid ku tahay xagaa laga doortaa xagaa laga doortaa ceebid ku tahay midnimada deedeysaan midnimada xagaa u marsan ma bari hidda lagu doortay halka wax ka tagraa wada ka carray taana wax ka tarimaysa waxaan u sheegaynaa iyagana sharciga lagu dhaqmaayay in la adkay doono waayo waxa inoo galay waxa inoo fudaatay in la yiraahdo waa hebel uu ka soo noqday afis uu doonaya dabeetana la soo qaadaya waa nin weyn dalkiisa ku soo noqday hal saamax hal saamax haddana uu noqday kii la saamaxay baa noqday mid ka taliya meesha aqli ma qarnooyin marka ka dhacaysa sharciga adkaaya baaskaraysa ee ahaa ilaa maxkamad la mariyo lama saamixi karo kii baa lagu dhaqayaa ku talagalay waxaa loo gudbayaa qaramada midoobay jimcada qurba ka dhaxaysa waxay ku dhisan tahay oo mabaadi'da koobaad tirarkaas siday laynoo sheegay inay ixtiraamaan xuquuqda bini aadmiga inay ixtiraamaan aayaka tashiga ummadeed Somaliland waxay tirsanaysaa markay eegto soddonkii sano u dambeeyay jimcada qurba ka dhaxaysa say sagad inda tirayso qadiyada Somaliland oo guriga baar ogtahay xeerkeeda iyo waxay ku dhisan tahay Somaliland waxay u aragtaa in ay ka gudbayso oo aanay ku dhaqaynin Somaliland sharciga loo asaasay oo garabarayso waayo Somaliland shacabka Somaliland waxa qaatay markii ay dhintay dawladdii midnimo qaran lagu heshiiyay lixdankii ay labadii dawladood ee xorta ku kulmeen markay dhintay Somaliland iyadoo isu dhan masiirkeeda inay gooni dawladda u dhisanto oo lixdankii soo celiso 18 May 1996 jimciyadda qurba ka dhaxaysa way ogtahay xeerkii hore ugu midoobana way ogtahay Somaliland waxay histo tahayna way ogtahay iyadii Afrika muran kama jira inay oo waa la wada ogay Somaliland inay ahayn dal goosanaya oo dalka go'aya hore u dhacay taas oo kale Senegal iyo Mali way kala baxeen Gambia iyo Senegal way kala baxeen Masar iyo Suuriya way kala baxeen sababta Somaliland ay indhaha uga qarsanaysaa jimciyadda qurba ka dhaxaysa iyo xubnaheedu ee looga ku heshiiya maanta waan weydiinaynaa ninka matalaad jimciyadda qurba ka dhaxaysa James Wan ee jooga xamar halkuu leeyahay in la heshiiya isaga maamula isaga la heshiiya yaa maamulaha la heshiiya soddon sano cid ma mushamar meeshu la cid heshiiya labadii dawladood ay ka duntay Timor markay kala baxeen Somaliland waxay qaaday jidkii nabadda dawlad dhiska dimuqraadiyadda iyo dawlad iska qaaday dhinacii kale wuxuu qaaday dhinaca fawdada iyo dagaalada iyo qaraxyada iyo ishaysiga aan dhamaanay waxa la yaab leh dawlado badan oo maanta dawladda way magac ku leh ayaa waxay ku daldalaan xamar dawladda xamar maalin walba hub iyo lacag iyo awood loo sameeyo waxa isweydiin leh marka laba dawlad ay ahaayeen ay ka duntay dhexe ay kala baxeen dawladaha caalamka iyo jimciyadda qurba ka dhaxaysa ee billions waxa la 100 bilyan baa galay Soomaaliya ilaa 1999 100 bilyan Somaliland bilyan ma galay waxa marsiisay aan siyaanay ciidan loo masruufo baarlamaan loo masruufo ee qadiyada dawladda loo masruufo intaba alxamdulillah shacabkooda isku tashadoo haddana waxa lagu daldanaa inta waxa la qaar baa hub ku daldanaya oo la arkaysa waxa la isweydiinayaa Somaliland isweydiinaysa oo jabcida qurba waxay soo weydiinaysaa iyo kuwa taageeraya ma waxa la dawladda caalamku uu taageeraya fawdada iyo dagaalka iyo qaraxyada iyo burburka mise wuxuu taageeraya cidda jidka hayaysan qaadaya dhismaha iyo waxbarashada iyo dimuqraadiyadda su'aashan waxa uu sheegay jibada